taliye ku-xigeenka koowaad ee ciidamada booliiska Somaliland ayaa maanta si rasmi ah xilka u kala wareejiyay taliyada qaybta booliiska ee gobolka. Munaasabadda xil wareejinta ayaa waxaa gudoominayay taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska Somaliland Cabdi Xasan Mire. Taliye guud Cabdi Muuse oo hore u ahaa taliyaha qaybta booliiska gobolkaasi ayaa xilkaasi ku wareejiyay taliyaha cusub, waxaana xil wareejin si rasmi ah u qabtay sarreeye guud Cabdi Xasan Mire. Cabdi Muuse ayaa hore u ahaa taliyihii qaybta gobolka Hawd, haatana waxa uu madaxweynaha Somaliland u magacaabay taliye ku-xigeenka labaad ee ciidamada booliiska Somaliland. Munaasabadda xil wareejintaasi ayaa waxaa goobjoog ahaa xogayaha degmada Balligubad, maayirka degmada Balligubad Maxamed Cabdi Maxamed Shiine iyo barasaabka gobolka Hawd Maxamuud Xasan Saleebaan, kuwaasi oo dhammaantood hadallo kala duwan ka jeediyay goobtaasi. Ku-xigeenka labaad Shanan Cabdi Muuse waxaan u soconay Cabdi Muuse waxa taliyihii qaybta Hawd ودلعي تلحين كل هذا عيد كبنيس ودلعي إلى هاي سقي عننا وهم نقول أسطرة الحين إنه ما أنت وريشي أو هو وريشي تلحين في قبس محمود هذا وين هو حلك فيها يعني بالله والنبي كل هذا نحن في مريضنا إن شاء الله إنه عنية هل كان شوفوا يبالغ لك حلقة يا ما أنت صدق يبلع عبر الله فري لها iyo rugtii iyadana la xiligi lahaa oo sidaan xogta ku hayno warasaabka iyo maayirka iyo dadka deegaankuba contribution fiican ay ka qaateen. Aan filayaa labadaas inay wixii sabti loo gaaro noqon doonaan, laakiin maanta Balligubad iyo inuu cunayo hadii la yiraahdo ayaan ku eegnahay gudoomiyaha gobolka iyo mas'uuliyiinta kaleba. Marka hore koowaad waxaan uga mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee ula shaqeeyaan ciidanka booliiska iyo guud ahaanba gobolka iyo degmadaba ay uga shaqeeyaan. Halkii aan wali iskaashiga iyo wada shaqeynta taala laga maarmi maayo wixii taakulo iyo gacan siina nin qariiba jooga idinka hadii odayaalo oo idinku barbar taagan waana idinka mahadnaqaynaa. Idinkuna wixii aad ku dari karaysaan ku taakulan karaysaan tale iyo tusaalaba way idinka baahan yihiin wada shaqeyn fiican oo sida maamulka halkan joogay ay bilayska ay nolol shaqeynayna la garab taagan aad u qiimaday. Adiga waxaan ka codsanaynaa horta inaad ku xidhnaato maamulka iyo dadweynaha iyo sharafta leh halka jooga inaa ahaato taliye xigeenka imika ku sameey xilka u wareejin wata waa abtigay wana reer galbeed oo anagu soo abtiskunahay waxaanu mar haduuna magaaladii gobolkii Hawd u dhalan inaguna waxaan inaga codsanayaa inaad xil gaar ah iska saartaan isagana waxaan ka codsanayaa inuu dadweynihiisa ku xidhnaado iyo maamulkiisa ku xidhnaado galbeed oo dhan waad matalaysaa sharaf inaad doosayso maalinta dambe aad ka tagayso in la yiraahdo ninkii nin wanaagsan buu ahaa ayaa isagana inta ugu dardaaraya hadal badan kullu umaan imanin waxay hawshan u nimidna inta xil wareejinta ahayd waxaan inagu dardaarayaa sidii aan ila shaqeyn jirteen inaad iyagana ula shaqeysaan maayirku jooga xogayu joog dooyo gobolku joog xigeenadu joogan saraakiishii kale way joogan sidii aynu u wada shaqeynayno inaynu u wada shaqeyno ciidanku waa iska yarada meesha ku jooga laakiin tayu leeyahay taliye qaybaadku laga maqnaa muddadii aan joogay kulley hawlgal wixii aan galay iyo wixii aan qabtayna madaxda gobolka sheegay oo inii sheegi doonta insha Allah taala nin dadka ka qaloolaya nin gobolka ka qaloolaya meeshu tagaba aan waxaan isku qabaa in dad Somaliland maamul Somaliland 35 sano soo shaqeynayo Somaliland u shaqeynayay in ay iga horeeyaan dadka oranaya meeshan maxaa gala horta ma yihiin taala aqbala wixii tamaritaay ciidanimada gobolka waa gobol ballaaran markaan qiimeeyay markaan eegay ciidanka maanta aan haynaa kuma fil dul xabad noo jooga حب الله أسكر بحقوق قبل كوري قبل لقى قاعدنا يبقى ترى ماشي تعالى أنت أول أنت إذا نسينا وهذا خلصنا يسين وحين نوصل قال لنا نوصل قبضة تأكل أيضا بالو بحال هاي وأنا طول درن تأكل جديد بالو بحال هاي قلبي هذا ما يجسدني نورس بالقبل ليش شفته مسؤول بالقبل ليه ما تابع أبو وسيلة ما شلون بالقبل يا وحكم يجي أحمد ياسين وحكم عبد المنصف وحكم محمد علي المعقول كينكو
markuu hargeysa ugu yimid ingiriiska ka yimid magaalada ugu horyimid bulbuled markaa malaareer bariga yar bay naga leexleedaano waxay ku noolyiin magdila dhabiya barsaabadii laakiin waxaan sii yahay reer galbeedo horta mucjisadiina maanta waa halkan midina waa noo bushaalo booliiska hoose gobolka hawd baa haysta cabdileena taliyo aqalku ku noolaa waa kan isagiyo ninkii magaranaysa taliyihii aaga dhahaybi halkuu ku noolaa iyo isagu halkan bay ahayd cabdi muusena oo kan cabdi xasanna waa kan booliiska maanta kelmadda asirto saabaad ku mahadsanta وعبد موسى وكوري جينيو تريهنا قيبته عصب marka hore ilaahay waxaan uga barayaa labadiina baan idin ka barayaa Cabdi Muuse adigana xilka lagu magacaabay qaranka inuu ilaahay kugu asturo ilaahay idinkiisa taliyaha cusubna waxa leeyahay sidaas laag ilaahay adigana kugu asturo sida Cabdi Muuse sheegay kulli wada shaqeyn baan naga dhaxaysay taliyaha degan oo ahaa taliyo umada dhageysanayo ahaa taliyada soo dhaweynayo ahaa adigana saa iyo si lamid ah kaaga rajeeyay ilaahay sidaan ula shaqeynayno waan kula shaqeynaa ima ka wada shaqeyn waxaan baan naga dhaxaysaa intii deeybka wada shaqeynayna ba hawl badan baynu wada qabanay waxaan rajeynaynaa insha Allah bismillaah kariim inaynu nabadgelyada amniga iyo iimaanka amniga horeeya amniga haddaynu ilaashano wax walba inoo hagaagayaan kaliya meeshan waxa ku taala waa xuduud toddoba magaalo oo South Hamba ayaa xad ku taala toddobada magaalo imka bahalka la chat-ka kala la yiraahdo jooga maamulku joogaya waxa weeyaan dhibta naga haysatay ilaahay baa ku keenaya waxa weeyaan toddobada magaalo xuduud ku toosan ciidamada joogan toddobada magaalo imka kaabadan xitaa toos baa la iska dhaxmaraa ciidamada joogo marka waxaan u baahanahay ciidanka kordhintiisu maadaama uu gobol yahay rugda kamida hargeysa ayaa ka badan imka gobolka oo dhan oo inta joogta marka waxaan codsanaynaa inta horta bal ciidankaasi amniga aan u adkayno oo aan u ilaalino inaan horta ciidanka aad loo kordhisaan nooc walba way nagala shaqeynaa marka ciidankaasi saldhigyadaana anagu diyaar waxaan u nahay degmo ahaan sidii koo hore baan uga qayb qaadanay saldhig kasta oo la dhisayo si amnigu inoogu hagaago inoogu xoogeysto inaan saldhig kasta oo la dhisayo aan ka qayb qaadano oo contribution-kayga anagu aan ku darsano insha Allah bismillaah kariim kan imkayna cunayna insha Allah waan ku darsan doonaa marka waxa kale oo jirtay rug aan soo dhignay oo baargo meesha la yiraahdo district badan bay u jirtaa xagaana saylayn badan bay u jirtaa xagaana hargeysa badan bay u jirtaa bilgudana hadalkii marka halka maalintii anagii barisaabka aan kormeer ku tagnay baahiyaha deegaanada aan soo qaadinay waxaan soo aragnay halka baahida amnigu taliyaha qaybta la socday police Somaliland jiro ee ku suntan buu kamid ahaa gobolada dalka meel buu ka soo shaqeeyay sidaa isagoo hore u sheegay anigu 3 jeer baan gobolka Togdheer u noogu yimi intaan joogay 2 jeer mar gudoomiye degmaan ah 2 jeerna gudoomiyaha gobolka xisbiga mucaaradka baan ahaa si fiican oo qurux badan soo wada shaqeyn aad iyo aad baan ugu farxay markaan halkana aan ugu yimi isagoo taliye qaybadka waayo Cabdi waa ciidan yaqaan waana dhaqan yaqaan wana ciisa oo xeerarkaadu yaqaan gobolkana laftiisu waa qolada xeerka ciisa ku xigta baa digta xeer dambas weyne la yabaalkan u yaalo ay la soo baxaano wax allaale wixii la kala xalilayo 5 minutes bay ku kala xalilaan dadkuna hadii uu kala baxo waxa fududaata in ciidankii booliiska culays badan baa laga qaadaya xeeraalintii baa culays badan laga qaadaya maxkamadii baa culays badan laga qaadaya jeerashii baa culays badan laga qaadaya odayeyntii iyo barasaabadii iyo dadkii joogay baa culays badan laga qaadaysa runtii anigu 6 bilood baan joogaa waxaan qirayaa sida Cabdi Muuse uu qiraayo General Cabdi Muuse Cabdullaahi waxaan qirayaa inuu gobol aad iyo aad u qiimo badan ay degan dad karaamo leh oo isdageysta oo kala xishooda oo xeerar leh oo aad iyo aad waliba dadka kale ee u yimaadana
si fiican u soo dhaweeya dhanka kale janaanada iyo mas-uuliyiinta gobolka Awdi iyo degmada Balligubadle ayaa si rasmi ah u dhagax dhigay rug booliis oo cusub oo laga hirgelinayay magaalada Ina Cunay mas-uuliyiintaasi ayaa madashaasi ka jeediyay hadallo muujin sida ay rugtaasi booliisku muhiim ugu tahay sugidda amniga iyo horumarinta deegaanka ciidanka booliiska Soomaaliland ayaa si joogto ah u fulinaya qorshayaal lagu tayanayo amni lana gaarsiinayo adeegyada booliiska meelaha fogfog ee dalka maadaama meeshan ay tahay wado furan oo kontrabaan iyo mukhadaraad iyo wax walba ehelwa insha Allah waxaan rajaynaynaa wixii anaga booliiska waajib nagu ah xaq ciidan iyo xaq agab taliyaha ciidanka booliiska way sarkan wadayaasha waxbuu la ogolaaday aad buu ugu mahadsan yahay uu ballan qaaday waxa kale la deegaanka iyo gobolka ku filan yihiin waxa muhiim ah kontrabaanka iyo mukhadaraadka sidii loola dagaalami lahaa in dadweynaha deegaanku gacan ka geystaan haddii aan dadweynuhu booliiska gacan siin waxa ma qaban karo booliisku ana dadweynaha waxaan ku dhiirigelinaynaa ubadkeeni baa la badbaadinayaa carruurta yaryar ee kuwaas yaanay hoostiina ku dayacmin iyagoo inta la leebay qaar joogaan imika oo ay xashiishad iyo balaayo ay barteen marka taana dadweynaha deegaanku waxa halkan maraya barasaabkii meeyarkii magaalada muxuu ahaa sanadadii halkan maraya waxaan ku soo dhaweynaynaa halkan inay noo dhagax dhigaan ya taliyaha ciidanka booliiskana waanu is aragnay wuxuu naga ballan qaaday kharashka inuu barkiisa wixii suuragal ah oo naga bixiyo wixii kalena annagu aan isku tashanno annaga iyo meerka iyo muxuu degmada iyo tuuladu 17 bishii 7 waxaanu halkan dhagax dhignay saldhigii booliiska ee magaalada Ina Cunay rugtii ayaan dhagax dhignay waxaanu doonaynaa inaanu adkayno amniga inaanu adkayno deegaanka mukhadaraadka iyo waxaana iyadana inaanu ka hortagno u baahanahay oo iska kaashano qacmaal isqabsayno u baahanahay oo qofka arka xitaa uu soo sheego booliiska uu soo sheego saldhigan waxaanu ku dhisaynaa contribution baynu ku dhisanaa anagoo degmadii Balligubadle waxaan kaga qayb qaadanaynaa 20 milyan iyo gaadiidkoona u soo dirno niista iyo dhagaxa iyo jayga bay soo dhigi doonaa insha Allah bismillaahir kariim diyaar waxaan u nahay intay dhamaanayso wixii dhimana inuu cabdi hayb haduu alla yiraahdo in soo gaarsiyo insha Allah rugta booliisku wax badan bayna taraysaa amniga ka qayb qaadanaysaa horumarka ka qayb qaadanaysaa maxay tahay wada noolaanshaha ka qayb qaadanaysaa xadgudubka dadku isku xadgudbayo in wax laga qabtaa bay ka qayb qaadanaysaa xakamaynta muqaadaraadka ka qayb qaadanaysaa meesha haddii booliis joogo nabadgelyo joogta haddii booliis joogo horumar baa ka jira haddii booliis joogo tuugoo dhan waa wareegaalaysanaya waa dhuumanaya waxaan daawanayay saaka suuqa Hargeysa oo xalay iyo mojo dhawaan laga duubay kilib lacag baa soo rasaysan waa 3 habeenimo inamadii waxa la weydiiyo la yiri yaa idilaash cidina nama ilaalinaysa laakiin telefoon uma dirnaabay haddana mid warwareegaya aragno booliisku ma la hadlay cid nagu soo dhacaysa ma jirto horta amniga Allah inoo adkeeyo booliiskeenuna waa booliis dhisan oo tababaran oo dhowr sanadooyin dawladda ahayn waxaan ku mar kasta talaabo hore u qaaday iyo ka hor badee Soomaaliyeed hay marka maanta xaruntan waynu bilaabaynaa insha Allah cabdi hayb aad iyo aad baan ugu mahad celinayna wasiirka oo deegaanka soo jeeda hadiya jeerna dadka waxa u dhaqdhaqaaqa dadka deegaanka Allah isheeg laakiin walada arab runtaan u sheegayay sida u leediin dadka hal doorka iyo sida gobolkiina iyo degmooyinkiina u dambeeya isma laha runbaa idin sheegaya hay horay u ahayd inaad wax dhistaan kumar baa iskuulka laga qoray baa leeyahay rug bilays male waana magaalo weyn deegaankani ma horumarsana xaqiiq ahaan imkaaniyaadku waa ku yaryahay laakiin waynaynu imika u diyaar garownaa inaynu inaguna wax qabsanno xukuumadda inoo soo jeedo waxayna la qabanaysaa joogta run kala doonaya madaxweyne inoo soo jeeda oo deegaanka doonaya wax laga qabto deegaanka waxa la doonayaa inuu noqdo deegaanka ganacsiga wadada Balligubadle hamoodina in la isaga dhisayo wada caadi ah waa wada ganacsi weyn waxa la rabaa ilaa iyo Afrika in halka ay ka waraabiso Soomaaliland Cabdiraxmaan Samriye TV caalamiga oo Cable TV ee gobolka